Sheekadeenii qaybtii koowaad ee ninkii isku beddelay bahalka ayaa waxa ay inoo marisay iyada oo Mahdi xaaskiisii ay madaxa ku dhufatay dhulka naxdin daraaddeed. Mahdi xaaskiisii waa ay dhimatay waana la soo aasay, balse Mahdi ayaa waxa uu jira ayda mana uu soo noqon weli. Dadkii magaalada ayaa tashtay, waxa ayna u tashteen in ninkani soo noqon doono, kadibna ay u diyaariyaan naag saaxirad ah oo magaalada u dhoweyd si ay uga celiso ninkan bahalka ah. Kadibna Mahdi waa uu soo laabtay, waxa uuna ku soo laabtay magaaladii. Isla markiiba waxaa si lama filaan ah u soo baxday naagtii saaxiradda ahayd ee ay u diyaariyeen dadkii magaalada joogay. Kadibna muran dheer kadib waxa ay ku tiri, ma waxaad doonaysaa inaad dadkan cuntid? Ha, ayaa uu ku yidhi. Waxay ku tiri, haddaba dadkan taaban maysid ee ka leexo. Kadibna waxaa dhex maray dagaal xooggan. Dadkii magaalada deganaa ayaa waxa ay kala socdeen kor, waa ayna daawanayeen dagaalka. Nasiib wanaag, xoogaa markii uu dagaalkii socday waxaa laga xoog batay ninkii isku beddelay bahalka, waana la eryaday. Kadibna waa uu cararay, waxa uuna aaday dhankii kaynta ayaa uu cararay. Dadkii magaalada oo yaaban oo leh xaguu aaday talow, xaggaysa uga daba tagtay ayaa ka daba tagay iyana, oo waa ay aadeen meeshii ay isla aadeen. Kadibna xoogaa markii uu soo cararay ayaa waxa uu istaagay kaynta dhexdeedii isaga oo qaylinaya oo aad iyo aad u ceeya. Kadibna waxaa ka daba timi naagtii saaxiradda ahayd oo doonaysa inay ka takhalusto gebi ahaanba isaga oo ay disho. Kadibna markii ay u timi waxa ay ku tiri, yaa tahay adigu? Maxaadse ka doonaysaa ninkan Mahdi? Adigu isku kaayo sheeg, yaa tahay? Kadibna waxa uu ku yidhi, anigu ma ihi Mahdi, waxaan ahay bahal, waxaana ku dhex jiraa Mahdi. Dadkii oo arrinta maqlayay ayaa iyana naxay. Isla markiiba haddana waxa uu dagaal ka dhex bilaabmay naagtii saaxiradda ahayd iyo bahalkii. Kadibna bahalkii markii uu ogaaday in laga awood badan yahay ayaa waxa uu bilaabay inuu la hadlo saaxiradda oo uu ku yiraahdo, anigu waan ka baxayaa ninkan lagu magacaabo Mahdi, balse ma ii ballan qaadaysaan inaad i daysaan markii aan bannaanka uga soo baxo? Kadibna naagtii saaxiradda ahayd ayaa waxa ay ugu jawaabtay, waa laga yaabaa inaan ku sii dayno, balse marka hore waa inaad ka soo baxdaan ninkan miskiinka ah ee iska shaqaysanayay ee aad dhex gashay. Kadibna waxa uu yidhi, waan ka soo baxayaa, balse ma laga yaabaa inaad i dishaan aniga? Waxa ay ku tiri, maya, ee ka soo bax. Kadibna waxa uu bilaabay inuu ka baxo, waxa uuna ku dhacay dhulka. Kadibna waxaa soo baxay saddexdii nin ee isqarinayay. Kadibna ninkii Mahdi lagu magacaabi jiray oo naxsan ayaa waxa uu arkay bahalka ag taagan iyo naagta saaxiradda ah. Kadibna waa uu naxay, waxa uuna ku yidhi, xaggee ayaan joogaa anigu? Maxaase dhacay? Sidee wax yihiin? Kadibna dadkii ayaa ugu jawaabay, adigu isma ogid, waxyaabo badan baa noloshaada iska beddelay, waxyaabo badan baa qoyskaaga iska beddelay. Bahalkii oo halkan taagan ayaa naagtii saaxiradda ahayd waxa ay gelisay waran sumaysan. Kadibna halkii ayuu ku dhintay bahalkii oo waa ka takhallustay. Raggii iyo magaaladii dadkii joogay ayaa waxa u mahadceliyeen naagtii saaxiradda ahayd. Sheekadeeniina halkii ayaa